waxaan belka giigsan iyo kabaha gadafta uga xidhay waxaan guraha habeennimo u guclaynayaa yeengayga ugu meersanahay. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مركبات إلهي بقى مهد سكاله جل وعلا نمعوين بدن السيئة إسلام النقادي جاي ما ركتي أمني يو نمعوين بدنو كلين السيئة مركب الله بعد وحنا ديادوهم بليانيا ما ركتي ومدري السومالي لان أمني أنا قرش قيسا يعني آدي فنتي يعني هم هذا نقايا saaka waxaan doonayaa kelmad yar inaan ka iraahdo waxaan la hadlayaa dadweynaha ama bulshada noocyada kala gedisan ee ku nool gudaha iyo dibadba Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan doonayaa kelmad yar ku iraahdo maalin dhaweyta halkan waan ka hadalay waxaanu sheegnay anagu amniga u xil saaranahay amniga gudaha u xil saaranahay amniga dadkayaga iyo dalkayaga iyo caruurtayada dhaqaalahooda naftooda hantidooda maaragtay cirdigooda sharaftooda inaan u xil saaranahay oo naloo xil saaro marka caynkaa tahay annaguna waynaan xil aad iyo aad u weyn iska saarno si aan amniga u ilaalin lahayn oo u sugi lahayn waxaan u sheegnay dadweynaha mudaharaadku inaynaan inagu aqoon mudaharaadku inuu dhib yahay laba nooc baan u sheegnay koow mudaharaadka horta ninka doonaya inuu mudaharaado qof kastoo muwaadin wuxuu xaq u leeyahay in la doortiyo in wax doorto inuu abaabul mudaharaad ka qayb geli karo laakiin waa goorma xeerka u ogolaanaya si waa kuma imika nin kasta oo inaga mid ah iyo qof kasta oo inaga mid xaq uu leeyahay wax doortiyo in la doorto qof kasta oo inaga midina madaxweyne isma sharxi karo ilaa uu xeer iyo nidaam iyo xusbi iyo musharax iyo halka amar sidaas oo kale qof kastaana iskama mudaharaadi karo ilaa uu xeerarka dalka u yaala soo buuxiyo qof kasto inaga midna arrintaa uu garanaya wixii aan waxa ahayn qofkii islaamar waa qof kharbudaad inagu wada amnigeennana wax yeelaya waa qof dhib aynaan u baahnayn doonaya inuu inoo geysto ciidamadii loo xil saaray ee aanu kowda ka hayna arrintaa ogolaan mayno waana is hortaagin waxaanu sheegnay amni mudaharaad aan sharciga waafaqsanayn aan ogolaanin waanu sheegnay maalintii hore waxa kale oo sheegnay mudaharaadku inuu inagu aynaan aqoon oo mudaharaadka salmiga caalamku sheegay aynaan aqoon ingiriiska 15 iyo 16 baan ugu waan jooga wasaaradda la tagayaa qusayso ee xaq u leh saac waqtiga la mudaharaadayo iyo waxa laga mudaharaadayo iyo meesha laga mudaharaadayo ayaa la sheegay dadku way soo soconayaan boolisku dhac qaadaya xafiiska rasuul Allah hortiisa barta shabeega galay halkaas ka hadlaya inagana markay bilaabaan ayaa dhagaxii la bilaabaya shiidkii la bilaabaya oo wax walba la bilaabaya oo rasaastii la bilaabaya sida maanta arkayseen in rasaas noolna la dhacay oo ciidanka boolisku waxba ridin waa runtayda social media ay ku jirtaa maaha propaganda iyo waxaan iska leeyahay maaha maadaama ay taatahay mudaharaadkeen natiijadu waxay noqonaysaa qasaare dhimasho dhaawac xarig hooyadoo silicda oo qofka marka la xidho qofku dhibaatada qofkeedu kaligeed ku koobnaado waanu sheegnay labadaaba waynu arkaynay halkii laguma joogin ceebtii saaka dhacday ee inta dadkii la soo abaabulay mudaharaadkii bilaa sharciga ahaa la soo qaaday dadkii la soo kiciyay rasaas nool lala soo dhex qaaday rasaas nool lagu riday oo ciidanka booliska lagu riday qof walo social media daawado arag ciidankii baabuurta shabeeglayaasha awatay oo aan xabad riday oo rasaas loo dhacay daw arag annagu hadaanu ridnay rasaas rabad bullet ama rasaas rabadka ah ama aanu ridnay mid maaragtay qiiqa booliska caalamkaanu la midna waxaanu dadka iyaga kala xishoonay inaan ku ridno rasaas nool kula ridi mayno waxaan horta u sheegaynaa inanka xabadda nool ku dhufanaya ciidanka ee xabadda nool ee aan loo baahnayn ridaya
siyaasigiisii daba socdayna sacabka u tumayo la deyn maaye askarigu u istifaaciyo xabad noolba ku dhufan horta taa ogaada waa ninka xabad nool rida dadweynaha iyagana anagu xabad ku ridi mayno laakiin waxaanu xusuusinaynaa oo aanu u digaynaa oo aanu u sheegaynaa adeer qof walba gurigaaga joog kursiga adeer adigu tegi maysid nin baa tegaya ninkaasu sharciga ha u maro adeer ninkaasu kursiga sharciga ha u maro inankaaga yuu kaa sahayan inantaada yuu kaa sahayan dhaqaalahaaga iyo daartaada yuu kaa sahayan gaadhigaaga yuu kaa sahayan amnigaaga yuu kaa sahayan adeer gurigaaga iska joog hooyoy gurigaaga iska joog waar inankaan adeerka oo gurigaaga iska joog adeer inantaan abtigiyo adeerka oo gurigaaga iska joog adeer guryihiina iska jooga maanta resultigi waynu haynaa durtaba hebelii soo daa hebelii dambayno maxaynu faa'iidinaa kuwii hogaaminayay dhibaatada hogaaminayna waa kuwa halkan ka barooranaya xidhan maxaynu faa'iidinaa bari sheeg waan idinla hadlayaa hadalkayga dhiga u yeesha qof kasta oo qof laga xidhay imika wuu yimi waar adeer dambayno adeer ii soo daa adeer meel fog ha iga geyn adeer de adeer maaha ka daa marka hore adeer ha keenina waxaan dadweynaha ku adkaynayaa amniga gudaha cidna ka yeeli mayno inuu khalkhal galo waanu ishortaagaynaa waanu ka hortegaynaa waanu joojinaynaa xasiloonida dalka waanu ilaalinaynaa shaqadii aan noo xil saartayna naloo xil saaray weeye cidna ka yeeli mayno amnigaa in la khalkhaliyo hooyada halkaa tabaanida ku imanaysaa ina carcarartay intii maanta dheeraad ku ah intii maanta loo geystaa dheeraad ku ah sabti maahe 9 sabti haddii la ballan qaado hal qof oo soo baxa yeeli mayno wallahi baanaan yeeli adeerow dadweynow nabadda nala ilaaliyo dhibka aynu iska dayno annagana hana gaadhsiinna idinkuna iska daaya dadkayagii baa tihiin waanu idiin taaganay waa idin ilaalinaynaa amniga nala ilaaliya oo dhibka iska daaya oo soo bixitaanka bilaa sharciga iska daaya qof walba xusuusnow dhibaatadaadu ma gaar ku noqonaysa mas'uuliyadaana waxa qaadi doona cidda idin soo abaabushay soo saartay ayaa qaadi qofna indhaha iska ridi karo xeerarkan waynu wada akhriin naqaana taas waa taa waxaan aad u hambalyeeyaa ciidanka booliska ee dadkii iyo nimankii amniga khalkhalinayay ee waddanka khalkhalka ku abuurayay sida diirad uga hortagay ayaan aad ugu hambalyeynay waxaan idin leeyahay halkaa kaga haya waynu isla ogeyn shaqadeennii weeye amnigaynu u xil saaranay dadkeenna aynugu seexda dalkeennaynu ilaalinaynaa cadow badan oo kale weliba inuu inoo dhex qaadaabuu doonayaa foojignaada halkaa iyo meel adagna kaga haya asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu